بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركله كلنتو عنا وناكسنا قيارتها هودا inaga daawanaysaa idin ahaantiinba meel walba dunida ka joogtaan iyo si walba noo daawanaysaan halkan dabcan aad naga daawanaysaan waa youtube-bada kala ah Arfi Beauty Channel iyo youtube-ka Liban Kulo. haddaba qiyaaray waxaa qadka telefoonka magaalada Nairobi si toos ah ugu jirta youtuberada caanka ah Arfi Xareed Aadan oo iyadu gabadh Soomaaliyeed kuna nool magaalada Nairobi sidoo kalena youtube-ka ku madaalisa kumanaan kun oo ruux oo iyada ku xiran an Arfi ku soo dhawo barnaamijka waan dhawahay walaaliban aad iyo aad wad mahadsantahay walaal waan dhawahay soo dhaweyn kadib haddii aan ku weydiiyo su'aal la xiriirta waxyaabaha ay dadku midabkooda ku dooriyaan sida kareemada oo kale maadaama aad tahay qof hawl wadaan ah khibradna u leh arrimaha la xiriira beauty-ga amaba waxa la yiraahdo isku xinta haddii lacala ay dhacdo daawo uu qof isticmaalay isaga oo rabo inuu midabkiisa ku qurxiyo oo ay difeetooyin dhinaca jirka ah u keento amaba ay cudurro u sababto sida haaro waaweyn oo jeexjeexmo oo wejigiisa ka dhaca ama finan kusoo booda oo kale amaba fururyaha oo dilaaca maxay tahay daawada dabiiciga ee ku habboon ee loola falgeli karo waxyaabaha noocaas oo kale ah waa mahadsantahay walaal horta marka hore aad iyo aad baa u mahadsantahay mar kale insha allah marka walaalow horta way jirtaa baryahan aad iyo aad dumarkeena Soomaaliyeed mise xataa Soomaalida kaliya ma dad badan ayaa aad u isticmaala waxyaabaha chemicalka wajiga la mariyo oo waxyaabo fara badan oo la isugu geeyay hataa hal maaha laba maaha saddex waa dhowr wax baa la isku daraaya dan waa la marsanayaa jidhka dhan wajiga kaliya maaha meel kasta la marsanayaa marka qofka maxaa la dhahaa waxa ugu fiican marka hore horta in taxadar aad samayso aad yani skinku waa wax aad iyo aad u qaaliya oo muhiim ah waa inaad marka hore taxadar ka especially wajiga waa inaad taxadar badan ka samayso haday dhacdaba yani ay dhacdaba kugu dhacdo taasina marka ugu horeysa horta waa inaad dhakhtar la xiriidho maadaama aad aragto in jirkaaga mise skinkaaga isbedelay oo dhibaato ay ku timi waa inaad horta totally wixii aad marin jirtay waa inaad horta dhaafto aad farahaba ka qaado totally si u dhan yihiin baad faraha kala baxdo ka bacdi waa inaad dhakhtar la xiriidho oo dhakhaatiirta skinka aad la xiriirto waxa laga yaabaa marka inay wax ka caawiyaan ka bacdi markay saas dhacdo oo wax laga caawiyo lagu caawiyo oo laga yaabo inuu skinkaagi raysanayo oo ka soo raysto yani chemicalkii mise dhibaatadii iyo nabrihii iyo jeexjeexii iyo waxyaabihii ugu geystay ka bacdi waa inaanad hadana wixii dib ugu noqonin waa inaad waxyaabaha iska dabiiciga ah ee la iska marsaday iska dabiiciga aan dhibaataba ku keeni karaynin sida malabka lindanaanta waxyaabaha dabiici qasil yani way badan yihiin ma soo koobi karo halkan kuma soo koobi karo waxyaabaha waa inaad isticmaasho aad totally faraha ka qaado يعني waxyaabaha dhibka ku keenay inaad sii wado looma baahna marnaba waa garti waxyaabahan hadda aan ka sheekeynayno inkastoo ay ahaayeen waxyaabo badi ay lagu yaqaanay dumarka oo kale haddana waxaa muuqata in rag badan ay hadda ku soo biireen oo ay la dagaalayaan midabkii midooba ay u dhasheen oo ilaahay ku abuuray qofka raba inuu jirkiisa bedelo isagoo isticmaalaya daawooyin laga yaabo in kiimika badan oo kala duwan ay ku jirto sidoo kalena dhaawici karta qof ahaantiisa midab ahaantiisa iyo waliba muuqaalka jirkiisa hadiiba ay dhacdo in qof si u marsaday daawooyinkaas ay ku soo godaan cudurro haragiisa amaba maqaarka jirkiisa halis ku ah markii horena aanu dhakhtar ka haysan warqad uu waxaas ku isticmaalo waxa ugu habboon ee uu samayn karo maxay tahay والله ولا لو ما تصنتهاي horta waa aad iyo aad bay u dhib badan tahay taasi maxaa la dhahaa bariyahan dambana horta xanuunada adduunka iska batay qof walba uu la socdo waa la og yahay xanuunadii way bateen si kastaba haatay yani nooc kastaba haatay xanuunadii way bateen hatta xanuuna aan la garanaynin baa bariyahan daba dadka ku dhacaan marka way dhib badan tahay qofka bini'aadanka mar haday saas kugu dhacdo oo yani skinkaaga intuu isbedelo ama xanuun aad qaado ama dhibaato kale ku dee dhakhtar ma ogiye marka arintaada wax kale oo la tacaali kara maadaama xanuun aad qaaday dhakhtar ma ogiye dee wax kale la tacaali kara maba jiraanba يعني دي وانا دكتور لحريدو او waxaana aad faraha ka qaadato tali kaba guurtad ka fogaato sideedaba
waa inaad dhakhtarun la xidhiidhun bay noqonaysaa wax kale ma jiraan maadaama hadday saasi dhacdo carfi waxaa isweydiinaya waxay tahay horta waa maxay waxa marka hore ku kalifi kara qofka wiil iyo gabar miduu doonaba ha ahaadee in uu ku dhaqaaqo in uu wax ka bedelo midabkii uu ilaahay subxaana watacaala u abuuray isaga maxay tahay qanaaca la-aanta hayse qofkaas ee uu u doonayo inuu midab dooris sameeyo marka hore wallaahi bilaahi walaalo waa dhibaatada ugu weyna hadda bulshadeena haysata aada iyo aad waagii hore gabdhaha unbaa lagu yaqaanay wax ismariyaan hadda baryahan dambe waxaad arkaysaa wiilal aad arkaysa inay midabkoodii bedeleen يعني totally aad u jeedo because qofka aan wax marsan iyo qofka wax marsaday waa la kala yaqaanaa markiiba waad garanaysaa waxaad arkaysaa wiilal wax ismariyay waad yaabaysaa markaa waad naxaysaa sabab maxaa ku kalifay nin raga inuu jirkiisa mise skinkiisa si kastuu balaag u ahaado si kastuu u madoobaado sababta ku kaliftay inuu skinkiisa bedelo mise uu wax mariyo warta waa dhibaato weyn oo ina haysata waxaad u malaysaaba dadku inaanay iskuba qanacsaneen qofka bini'aadanka inuu isku qanacsanaado mise uu yacni skinkiisa mise ilaahay siduu u abuuray inaad mar walba ku qanacsanaato waa horta waa shay aad iyo aad u muhiime waa inaad ku qanacsanaato yacni skinkaaga midabkaaga nooc kastaba ha ahaado madow casaan gudu yacni nooc kastaba ha ahaado waa inaad ku qanacsanaato marka dhibaatada ina haysataa horta waa taas waxaaba yacni ka dhaadhacsan siiba especially dadka hadda dhalinyarada mise dadka yacni qof cas mise qof cad ma ogeey qof kale saas maba loo fiirinayo hadduu gabadh yahay iyo hadduu wiil yahay yacni maba yacni gabdho waxay aaminsan yihiinba inaanu nin shukaansanayninba mise aanay ninba helayninba ay nolosha ka quusatay camal oo kaleeto ayaad u malaynaysaa ayay aaminsan yihiin yacni way aaminsan yihiin waad arkaysaa sometimes marka aad maxaa la dhahaa dadka qaarkood aad waraysi lala yeesho waxyaabahay ka hadlaayaan waxay aaminsan yihiin inaanan maxaa la dhahaa aanu ninba xaggeeda gabadha soo fiirinaynin maadaamay madowdahayba inaanu ninba salaamu calaykum badhahayn ayay aaminsan yihiin dhibaato weeye taasina waa dhibaatada ugu weyneen haysata bal ha ahaatee gabdhaha unbaa arrintaa lagu oga hadda wiilashii baa kusoo biiray bal markaa waan yaabanahay dhibka haysta laakiin waxaan kula talin lahaa dhalinyarada waxaan kula talin lahaa ee Soomaaliyeed ee waxyaabahaas oo kale ku dhaqaaqayaan waa inaad naftaada ku kalsoonaataa midabkaaga waa inaad ku kalsoonaataa skinkaaga waa inaad ku kalsoonaataa waa inaad ka fikirtaa yani hataa waxan waa just waxa weeyaan waa temporary waxaad ismarinaysaa balberita markay dhamaadaan qofkii aad u tagtay midab bedelan baad ula tagtay haddaad gabadh ahayd iyo haddaad wiil ahayd bal waayahay mustaqbalka maxaa dhici doona yacni hataa midabkaagu sidaad u dhalatay ahaan maayo marka daawo marsato yacni 2 jibaar mise 3 jibaar wuu isbedelayaa adiga dhanba waxaad noqonaysaa yacni baaba yacni meel oo gubatay oo kale camal kato meel oo markii hore geeda lahayd mise doog lahayd oo markii la gubay oo kale camal oo dab lagu qabtay saas camal weeyaan marka waxaa la dhahaa dhibaatada ugu weyn hadda ina haysato dhibkaasi yacni waa waxa ay ka shaqeeyaan yacni dukaamo waaweyn baad arkaysaa oo wax kalaba ka shaqeynin markaas line baa loogu jiraaba ayaga dhanba line baa loogu jiraa magaalada dhanba waxaan kugu cid kasta line baa lagu jiraa raggii xataa raggii waxaan ku hoos bay u iibsadaan ayagu intay line soo galaan ma gadanayaan line bay ku jiraan dumarkii marka naxdin wallahi waa waxyaabaha aadka u xun wax laga naxawaayo waa gartay bal si ay carfay u sahlanaato aqoonsiga qofka ragga ah ee wax ismarmariyay dadka ku dhex dhuuntay si tamid baanu midkiisahay marka ay cilada jirkiisa ku yimaadaan waxa ugu horeeya lagu aqoonsan karo ay bulshada ku garan karto inuu yahay qof gacan ku samaysa maxaa kamid maxaa la dhahaa waa la garanayaa hadduu rag yahay iyo hadduu dumar yahayba markiiba waa la garanayaa qofka finan baa kasoo baxbaxaya finan gudguduuda kasoo baxaya oo qaar dheecaan wataa kasoo baxayaan bishimihiisu way madoobaanayaan oo black bay noqonayaan jirka kale madowgu soo guurayaa labada bishmood buu iskugu imaanaa yacni waxyaabo badan haddii jirka kale gacmaha la yidhaahdo dhulkana madow gelaya yacni dhulkaas madow ka gelaya waad fahmaysaa totally markiiba waad fahmaysaa qofka ninka raggii markaasaa kaaga hor yimaado aad faceka ugu horeeyaad face karayso waad arkaysaa qofkaas inuu daawo isticmaalay chemical inuu isticmaalay waad fahmaysaa waa gartay gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta leh iyaga laftirkooda markaan u dhimaado ma dhihi karnaa iyaga laftirkooda door muhiim ah ayaa waxay ka qaadanayaan midab doorinta hadda ku soo korortay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada oo badanaa waxa ay ka doorbidaan wiilka iscadeeyay midkii madooba ee madowgiisii asliga ahayd iyagu door ay ka ku leeyeen arrintaas gabdhaha aad iyo aad bay maxaa la dhahaa gabdhahu uga qayb qaataan
maxaan kugu yidhi daawooyinka yacni hadda waa kambaniyaaba jiraanba sameeyaan waxyaabahaas oo markii hore dee dad gaalaya waxaasunbaaba lagu yaqaanay mise waxay inta badan waxaa la isticmaali jiray daawooyin waxyaabo kale loogu talagalay ana iscadaynba loogu talagalin laakiin dadka dubka ka qaadaya laakiin hadda waxyaabo la isku caddeeyo imanka dee soomaali baaba sameeyaanba xataa waxaan arkaya kuwa la liqaayo oo la leeyahay waa inaad liqdo habeen walba hal xabo waa kaniin capsule camal oo intan dhan waa la liqayaa isagana kaasna waxaa la liqayaa kaasaaba ugu sii dhib weyn wixii korka la marinaya baaba roonaa baan dhahay hadda maalin dhaweyd baan arkayaa arrintaas iyadana mid la liqaayo kabsoole habeen wal oo ilaahay keenaba hal xabad liqaysa habeen wal oo ilaahay keenaba hal xabad liqaysa waxaan kugu dhahay adiga dhanba waxaad noqonaysaa dee cadceeda qoraxda soo baxda unbaad u ekaanaysaa marka wallahi waa dhibaato aad iyo aad u weyn gabdhahu dumarkuna waxaan kugu dhahay ayagaaba haddeer yacni wacdaray ku haayaan baan kugu dhahay yacni caadi maaha aad bayna uga qayb qaateen inay waxyaabaha la isku cadeeyo xataa ay soo sameeyaan ay ka qayb qaataan waa gartay bal maxaa is leedahay inay habboon tahay in la sameeyo si looga hortago aafadan sida weyn uga dhex faafaysa dhalinyarada soomaalida ah midabkoodii iyo muuqii uu ilaahay u abuuray ay kula dagaalayaan waa maxay waxa ugu sahlan ee ay bulshada soomaalida kaga badbaadi karto looga hortagi karo si loo dabartiro waxyaabaha caynkan oo kale ah wallahi walaalo aad iyo aad bay horta u adag tahay sababtoo dadka iyagaaba rabaanba maxaa la sameynayaa mid yar iyo mid weyn iyagaaba rabaanba marka hadday leedhaa xataa dowlad baa la dagaalamayso yacni markaa maamulka meesha ka jira ayaa la dagaalamaya oo hala dagaalo oo la dagaalamaya hadda way dhacday hadda mar dhexdana waddanka Kenya way ka dhacday in dukaamada dhan ee kiimikada lagu gado sidaa loo goobi jiray oo waxaan kugu yidhi la raadin jiray dukaanka kiimika laga helo kiimikada khatarta laga helo oo saa boolistu ugu wareegi jireen Soomaalidu intay baca ku cabeeyaan bay waxay gelin jireen miisaska hoostooda mise meelaha ku qaran jireen markaas hadhow markaas askarta hore u sii socdaana soo saaraana markaas dadka laga gadaya marka horta aad bay u adagtay maadaama hadii la yiraahdo calaashan maxaa la dhahaa dawlad baa ka soo horjeesanaysa mise dawlad baa wax ka qabanaysa way adag tahay waayo Soomaal maba la marsiinayaba si ay u gadaanba waa kuwii gadan le weeyaan bal laakiin haddana haddii faraha laga qaado oo go-aan laga gaadho oo laga qaado oo lixba la gadan waayo cidba ma keeni lahayn inta la soo dhoofiyo wadanada kale laga soo dhoofiyo meesha marka aad joogto cidna ma bay keeni lahaynba oo maba la keeneenba dadka ayagaaba ku dhegsanba bahashan oo rabaan marka dee kaliya uun waxa weeyaan in faraha laga qaado oo ay daayaan oo dadku fahmaan dhibaatada ay leedahay intaas un baa fiicnaan lahayd laakiin way adagtay baan u malaynayaa sida loo sameyn karaa taas waa gartay carfi maadaama aad tahay gabar khibrad u leh amaba khabiirad ku ah arrimaha la xiriira tajmiilka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aasha ugu dambaysa aan barnaamijka kusoo xirayn oo ah mar haddii wiilashii ay iscadaynayaan gabdhihiina sidoo kale ay iscadeeyeen kaba soo qaadba haddii wiil iscadeeyey iyo gabadh iscadeeyey ay isguursadaan canugu ay soo dhali doonaan talo ma caddaan doonaa mise madowgii hore ay kasoo guureen ayuunba ku dhalanaya walaalo qofna midabkiisa kama tago xaaraan haddaad iscadayso iyo haddii aanad iscadaynin yacni midabkaaga kama tegaysa kii aad hooyada caloosheeda kale ilaahay kugu abuuray ayuunbaad ahaanaysa xataa adigii marka daawada iska daysa kaagii unbaad noqonaysaa oo weliba sii haddana sii dugmay oo sii baaba-ay ilmaha dhashaana kaa maxaa la dhahaa midabkii aad ahayd iyo midabkaad asalkaaga horeba aad kasoo farcantay ayuunbuu noqonaya meel kale ma tegaayo daawadani ma waxba ma kugu saacideynayso adigii dhiigaaga yacni waxba kuma saacideynayso cunugaad dali doonto waxba ma waa gartay bulshada marka bulshada soomaalida ay sidee bay u aqbali karaan amaba u aqbali doonaan beritoole marka oday cad ama iyo hooyo cad aan idhahday aabba cad iyo hooyo cad ay iska dhalaan wiil madowgii ay kasoo guuraysata oo madow sidee dhaqanka noocaas dadku ay u aqbalayaan marka dee maxaaba hadda wax iska caadiyaabay noqotay waaba la aqbalayaa ayagoo gabadhi caddo weydaho u eeg nalkaas ayay maxaa la dhaha cunug madow oo balaagahoo si kala foolxumo badan dhalaysa hadda ayadaa foolxumaydo madoobeydba marka hore oo foolxumo yacni badowga de lama dhahayo waa foolxumo calaashaan ayadiibaa maxaa la dhahaa qof madow ahayd cunug madow bay dhalaysaa ayadana qof cad oo darurtan u eg weeye mise qoraxdan u eg dee marka qof walba wuu u jeedaa dadki xataa maxaa la dhahaa marka ay la noolay de waa loo jeedaa inay qof iscadaynaysa tahay marka la dhaho cunugaaga alla adigu gabadhsan cad baaba tahay maxay tahay cunugaaga madooba anigu waxay waa gacan ku rimis baa la yidhaha mawgidow gacan ku rimis weeyaan waxay maxaa cunugaygu de asalkii unbuu noqday bis waa intaasu wahagaag daawadayaal weli halka aad naga daawadaysaan waa youtubada kale ah carfi beauty channel iyo youtube-ka liban kulow carfi waxaan rabaa inaad noqoto
maanta inaad tahay qofka soo xiriya barnaamijka labada YouTube ka socda ee Carfi iyo Liibaan kusoo dhawow inoo soo xir barnaamijka. mahadsantahay walaalo mar kale aad iyo aad baan idin salaamaya asxaabtayda dhammaantood kuwa channelkayga ku xidhan iyo kuwa channelka maxaa la dhahaa walaalkay Liibaan Kuulow ku xidhan aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaantiin meel kasta ku joogtaan waqti kasta joogtaan ha idin wacnaado insha Allah waxaan idin codsanayaa inaad subscribe noo saartaan like sida oo kale insha Allah share haddaad awoodidna insha Allah bismillaahi kariim gacmo wada jir bay wax ku gooyaan soo maahan ciidina maxaa la dhahaa qofna kaligiis wax ma qabsado marka insha Allah subscribe noo saara waxaan leeyahay gabdhaha Soomaalida iyo wiilasha Soomaalida is cadaynaya daawada ismarnaya fadlan iska joojiya maadaama cudurradii bateen xanuunadii bateen dhibaatooyinka batay oo 24 hours dhakhtarka waxaan ku dhaqaatirta halkan marayaan because xanuunada cusub ee hadda yimi yani iskiinkaaga dhib ayay u keenaysaa daawada kiimikada ah haddaad wax isticmaalayso wax natural isticmaal mar walba natural isticmaal ya natural isticmaal biyo badan nacab haddaad bishinta haddaad dildilaac bishimahaaga ka dareento dhibaatada oo dhan caloosha ayay ka timaadaa waa inaad biyo badan cabtaa marka insha Allah aad iyo aad baan idin salaamaya asxaabtayda qaaliga dhammaantiin meel aad ku sugantihiin baa asxaabtayda waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan soo dhexdhay walaalkii Liibaan وهاجتاسina waxay ahayd Carfi Xariir Aadan oo iyada oo joogta magaalada Nairobi wadanka Kenya ee warabaysay hadaba qiyaaray ugu dambeyntii aniga iyo Carfi Xariir Aadan labadayada si wada jira waxaanu idin leenahay في أمان الله مع السلامة.